كل واحد فينا أمين ترمك اللي تشوفه دعاء لك على قاطو أو حويان رجوعات بود ذالين كرتيب بدن ويصاب بندقين وحياة بدن أو كيف لين يحكى بدن به ويصاب بندق ما شاء الله وإحنا ورنكرنا ونكون أمين كراينا وحويان إن شاء الله دلك وكون أمين كراينا ودسي كريان ورنكرنا حويان مرة الدين أنت أصلا إنجنير أصلا فريستان أو أصلا بعدكو إن حويان متى وحي كده منا إن شاء الله قدران أيان أدو بوريني السلام عليكم ورحمة الله. المعلمين تيجي كسوة تبعضها بيننا بدن يجلسوا كذينا ونكوا أمانية إذا كانوا يديوا جهينا بيننا بدن يجلسوا كذين رتي سبحان الله تعالى والدنا نيجي سومر على جوا رئيسته وحنوجه هذا رك بدن بعاو حلقة شوجا وسود الشقية كرنا يا بيأدي نجاه رئيسه يعقب ده هجر أديكم ما تنشخديه كرنا يا وسيد الشرع جاهد وفتشيء بلغة بدلية وسبب كنت إسرائيل برضو سمينها يدو عين هذا يربي دوري إنه ده سميسته marka waxaan uga jeedaa adiguna sharci iyo nidaam iyo rule baad ku shaqeynaysaa marka waxaan uga jeedaa in leeyahay waxa jira suuqa caqabado badan nimanyo waxa la idinka baahan yahay maanta sida ula shaqeysan lahaydeen adduunkana tuugu de wax ma xadee techniques buu ku daraa marka waxaan uga jeedaa in techniqueskii aad shaqada ku kasban lahaydeen in la idinka helaa la idinka doonayaa waxyaabihii talooyinkii la soo jeediyana inaad iyadana power ka saartaan inaad aanaydiis odhan أنا civil من هنا أنا يدورن ما تعرفوا كذا كي civil كهذا architecture بكوش قيسانيا كي واحد يقول لي architecture هنا ويحبه بكوش قيسانيا أنا أعرف كذا واحد هو simple engineer بعته أوريدي أنت بس كده دوبه واحد هاي fully مشروع عادي بس كده مركها أنت سان يدك بورن لها وأنا يدك أمانية رجع بدن يشوجه ده كله مدرس سوى شقيه بكرة engineerات وهنا يفكر كود يعقبه سوق الشوجه بين لو داعن لما يواد بان iyagana waxa weeye ku tixgelinaya waxyaabaha muhiimka ah marka nashqad la sameeyo maanta waxa kamida guriga nashqadana sameeyay materialka aan ku sawiray ma la helaya markan aan isticmaalay ma la helaya muraayadahan isticmaalay ma la helaya haddaad sameeyso mid aan la helayn de mashruuca waxa weeye shirkadina kicisay adigina ma laga qaadan maayo markaad maanta guri qurux badan sameeyso muraayadihiisuna qaali yihiin shirkad kalena sameeyso mid simple ah de waxa weeye qiimihii baa la kala weydiinaya maanta waxa ka wada qurux lama eego ruti oo guriga waxa lagu eegaa qiimaha iska daayo misad lagu dhisay bal goornay waan aragnaa baalkaad waday marka waxaan uga jeedaa inaad powerka saartaan muraayadaha haddaad ku badisana waa kos oo waxaan uga jeedaa area-da maanta muraayada la dhaho double class baa la dhahaa muraayadan la isku dhajiyo saana u jabin marka meter square-keedu 140 ninna wuxuu ku soo samaystay aluminium yar buu ugu sameeyay islaanta yareedoo tusay de marka waxaan uga jeedaa inaad iyadan xaga ku xisaabtantaan oo aad runtii isku daydaan inaad cost minimizing samaysaan macnaha waxa laga duulaaba wax kale ma inaad cost minimizing samaysid qarash oo dhan isku daydid intaas aan isku boorinayaa aad baan u mahadsantiin dhamaan macnaha engineering-ka oo runtii de suuqiisu uu still banaan yahay xaqiiqda marka laga hadlo laakiinse waxa loo baahan yahay marka suuqa la soo galayo in nidaam ka duwan nidaamyadii hore ama dadkii hore ee ku jiray ay u soo galeen nidaam ka duwan insha Allah in la sameeyo shaqadan engineer-kuna waa shaqo u baahan horta mas'uuliyad badan baa u baahan tahay مسؤولية بابا بانتاي ضاعدني بابا بانتاي waayo hadda dhismayaasheena waxa weeyaan dhibaatooyin badan baa ka taagan waxa loo baahan yahay wixii aad barateen inaad runta ka sheegtaan qofka ama ha ku qaraadaato ama waxa weeyaan wanaag ha ahaatee wixii aad baratay cilmiga ahayd sheegadu sidaas aad maarataanay if iyo aakhirba ku anfacaya moogtahay haddii reeshada la isticmaalayo isku darka hadday tahay shaqada quality-geeda sida standardka u sheeg qofku maarataanay doonaya inaad wax u dhisto isagu hadduu isagu ii bedelku yiraahdo isay ku xidhan waa mas'uuliyadda aad ma qaadayso moogtahay laakiin saadu wixii baratay oo xaqiiqa u sheeg qofkaas haddii ay daacadnimo meesha timaado qofkaasi weligiis uu ku jiraya laakiin si haddii qofku macnaheedu shaqada engineer-ku waa shaqo markaaba lacag la heli kara moogtahay si degdeg qof lacag sameyn kara haddaad markaaba tiraahdo lacagta ururso waqti si dhib yar baad macnaheedu suuqa uga baxaysa markaan waxaan kula talin lahaa nimayo waxaad barateen sidii uu ilaahay kugu ogaa umada xuu qabo sidaas baad maarataanay aad ku badbaadaysaa haddii kale foormaanadaasi hadda yihiin baad hadhow noqon doontaa anigu waxyaabahan xasuusta waxaa ka mid ah shaqada marka la soo galayo hadda jaamacadda soo dhamaysan jaamacad kale inaga horeysa jaamacaddaasi waxay u baahan tahay qofku dad la dhaqanka ugu muhiimsan markaad hadda jaamacad ka baxdo number 1 waa inaad dad la dhaqan yeelataa
haddana dadkii la dhaqmaynin saad shaqo u heshaa way adkaanaysaa oo jaamacad kale ku bilaamaysa oo u baahan samir u baahan oo caqabado badan ka hor imanayaan shaqada dhismuhuna markaad eegtaan dadka ka shaqeeya hadday wastaa tahay hadday kuuli tahay haddii dadka ka shaqeynayo dhanba inta badan waxay u badan yihiin dadkii ay dhibaatooyin soo galeen ama qof dukaan ka kacay ama qof problem la soo kulmay oo noloshii ka dhacay waa inta badan yimaada dadka dhismaha ku soo biira hadday wastaa tahay waa qof maaragtay baadiye ka yimiday man caqabado wada kala kulmaysaa marka caqabadaha inaad maaragtay u babaac dhigto oo qofka uu noqdo problem solver dhibaato qof dhibaato xalliya inaad noqotaa loo baahan yahay anu waxaan kula dardaarmi lahaa oo nima yahow waxa weeyaan bahalkaas daacad ka ahaado waxaanad garanayn waxaad tidhaahdaa anu waxaa ma garanayo ceeb maaha mogta laakiinse waxaad daran haddaad tidhaahdo wax kasta anaa qabanaya dee waxa weeyaan hadhowna qofkaad u qaban weydo macnihii adaaba dee dembi kororsadayba marka haddaad tidhaahdo anu architecture maanahay waan kuu sawirayaa qofkii kale ee maaragtay qaybta engineering ama civil ama structure ku sameyn lahaa soo qabsadha haddaad diyaarin kartaana waxa weeyaan waxaad kula talinayaa inaad diyaarisaan laakiinse intaa taqaano uun dhaan intaasaan aqaana intaas ma anu kula idin dardaarmi lahaa macni mas'uuliyadda la haystaan waa loo baahan yahay markaad hadda ka baxdaana anu waxaad kula talinayaa inaad isku duubnaataan the teamka architect union isku sii doobnaanine waxa weeyaan inaad samaystaan groupyo isku jira civil engineer iyo architecture isku tagaan ay samaystaan kambaniyo maaragtay si ay isu kabaan laakiinse qofkii architecture-ka ahaa hadduu kelidii meel istaago waxa uu sameynaya wax dhammaystiran ma noqonayo kii civilka hadduu meel istaagana waxa uu sameynaya maaragtay wax dhammaystiran ma noqonayo markaan waxaad kula talin lahaa bal wixii jooga civil engineer iyo wixii architecture jooga inay qaybiyaan yani groups la soo noqdo si de wadankii wax badan looga bedelo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.